saac iyo daqiiqado markii ay gacanta hotelka maleeshiyadu ay maamuleysay waxaa noo cad in maleeshiyadu dad qof alla iyo qofkay doonaan inay tooga kareen intii gudaha hotelka ku jirta waxay maamulanayeen adigu 2 saac iyo dhowr daqiiqo ciidanka dowladda waxay yimideen 2 saac iyo dhowr daqiiqo kadib taasna waxay keentay uu yiri dib u soo dhaca ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya in maleeshiyadu ay dad badan si xasuuqaan inta kaliya shakal ku beeka nabadoon xad wuxuu yiri gargaarkii loo baahnaa ciidanka dowladda ama laamaha amniga hotelku uu ka sugayay marnaba laga helin way soo galeen waxay soo hormariyeen buu yiri ciidamadii Farxaan Qaroole oo hogaaminayay Haramcad ciidamadaasi si tacticaysan ay dadka u badbaadinayeen buu yiri mar alla iyo markii ay dowladdu ogaatay in dadka qaar la badbaadinayo oo ciidankii Haramcadku ay soo furdaaminayaan dadkii shacabka kadibna ay bilaabeen farsamadii ay kula dagaalami jireen argagixisadu markay galaan dhismayaasha ayaa isla markiiba waxa soo gaaray buu yiri fariin ah in ay ka baxaan hotelka si fiican u dhigaysaa marka hotelka inay ka baxaan kadibna waxaa lagu soo wareejiyay uu yiri ciidamo Alpha Group la yiraahdo oo anagoo idil wada naqaano oo ah ciidamo muddo 5 sano ka hor dadka Soomaaliyeed ugu dambeysay waana ciidamadii Alpha Group ay tababarayeen Imaaraadka ciidamadaas wuxuu sheegay nabadoon xad in ay dabciyeen dadaalkii Haramcadku ay wadeen oo markii ay Alpha Group timid arrintu aysan u dhicin sidii Alpha Group ay macnaha Haramcadku ay u wadeen marka wuxuu yiri howlgalkii waxa habacsanaan ku beeray Alpha Group si kastaba ha noqotee nabadoon xad waxa uu ka sheekeeyay intuu asaga goobjoog ka ahaa intii kalena dadka Soomaaliyeed markaatay ka wada hayeen kadib wuxuu maqlay in agaasimaha hay'adda NISA uu yiri dhulka hala dhigo hotelka si loo burburiyo dhammaantiis kadibna loo badbaadiyo dadka shacabka haday ku dhintaan laga gudbo maleeshiyadkuna ay halka naftooda ku waayaan arrintaas nabadoon xad ayuu uga soo horjeestay wuxuu sheegay in ayna suurtagal noqonin burbur iyo hantiyadeed iyo mid nafeed in la isugu daro dadkii Soomaaliyeed halka ku sugnaa arrintaas markii dambana waxa la sheegay inuu ka laabtay agaasimaha hay'adda NISA inta kadib maleeshiyadii al-shabaab 24 saac ay dagaalanayeen waxa su'aal hubka 24 saac ku filnaa sidee bay ku heleen su'aashaasi adiga qabay ama waan qabay jawaabteedii aan soo helay barnaamijka ayaa ku iftiimi doona goordhow balse intaan ugu gudagalay qaraxyada noocan oo kala ah waxay yimaadaan markii markab ka yimid Imaaraadka oo Muqdisho soo gaaro waxaan ogeyn 14kii October 2017 markab deeq ah ayay Soomaaliya u soo dirtay Imaaraadka waxaa dhacay qaraxii Soobe maanta qaraxa iyo waliba weerarkan wuxuu ku soo beegmay xilli ay Muqdisho soo gaaray markab Imaaraadka ka yimid oo waday haddaad xasuusataan dhowr maalmood ka hor ay ahayd saanado lagu sheegay markii hore 90 container markii dambana 40 container isku bedelay inkastoo dawladdu iyadaaba qaldaysa dawlad xisaabtaba qaldaysa containerada waxa ku jira kama warhayn waxaan hubaa maskax siyaasadeed oo aad u culus in ay arrintan ay aad uga dambayso laakiin ka hor dhici maayo laamaha amniga iyo qolooyinka qaabilsan ay arrintaasi aad u faahfaahin doonaan dowladda barnaamijkayga waxaan soo helay jawaabtii oo kama dambeeya maleeshiyada al-shabaab maxay ku heleen hub inta la eego 4 saac ay ku dagaalamayeen waa easy waa soo helay jawaabta in ka badan hal isbuuc maleeshiyada dagaalamaysa 25 ka mid ah waxay deganaayeen hotelka isbuuc iyo maalmo adigu 2 isbuuc wax ku dhow waxay sheegteen markay hotelka degayeen inay ka ganacsadaan malabka hotelka ay iska dejiyeen gawaariyo wataan maalin walbay baxaan hotelka yimaadaan cid baarta haba yaraatee malaha ilaa maalin walba waxay keenayeen bambooyin hub lagu ururinayo hotelka maamulka hotelkana hadda ma dhihi karo waxba kama oga waxba ku ogahay ma dhihi karo taas waxa iskale laamaha sirdoonka dawladda iyaga soo baari doona laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa inaan helay xog arrintan ku saabsan oo ay sirdoonka Soomaaliya soo gudbi doonaan si hordhacaya ugu talagalay aniga waa ku qancay maxaa yeelay waa su'aal jawaabteedii loo helay waxaan anigu isweydiinayay 24 saac hubka lagu dagaalamayay ma dawladda faray ku gudan tahay hubka intee ka keenay laakiin waxaan soo ogaaday in ganacsato kuwa isku sheegaya oo malabkan ka ganacsanaa
in hotelka ay deganaayeen ilaa 25 lagu sheegay laakiin tirada dagaalamaysay 25 kama wada aha waxa weeye rag fara badan oo qaarkood xitaa ganacsata ah inkastoo la baari doono 25 qofood ay ka koobnaayeen si aan looga shakin dad wajiyadooda caan ah ayay wateen si hotelka maamulkiisa looga shakin dadka hotelka imaanayana looga shakin dad caan jiray oo iyagu la socday qaar siyaasiyiin hore ayaa laga sheegay in ay ku milmaayeen dadkii deganaa hotelkaasi muddadii isbuuca ka badnayd marka calaa kulli xaal hotelkii sidaas ayaa hubka loo geliyey maleeshiyaduna qol ka mid a hotelka hubku diyaar ku ahaa ayay toos u aadeen markay gudaha galeen kadibna qolkaasay galeen hubkoodii la soo baxeen mar walbana hubka kaydkaasi ku dagaalamayeen waa mid aan anigu kaga jaahi baxay shacabka soomaaliyeedna ogaada waxaan sugaynaa marka laamaha amniga dalka inay faahfaahin dheer ka bixiyaan hotel xayaat waxay ka kulmeen waxaan ka sugaynaa tirada dhimashada inay dowladdu shacayso waxaan ka sugaynaa sidoo kale maadaama ay saraakiil ka tirsan laamaha amniga inkastoo weli aan si officiala loo shaacin ay sheegeen hotel xayaat inuu gacanta u galay laamaha amniga dowladda soomaaliya maleeshiyada laga adkaaday waxaan ka sugaynaa sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya tirada maleeshiyaadkii soo weerarayna inay noo sheegaan waxaan kaloo ka rabnaa intii badbaaday haddii ay hayaan meydadka shabaabna in lasoo bandhigo hadday baxsadeen la caddeeyo la yidhahdo xilligaana waxaa suurto gashay inay shabaabku baxsadaan kolley intaasna waxaan ka sugayaa laamaha amniga dalka wax badan oo qarsoonaa jira inkastoo hadda jeclahay inaan noqdo qofka labaad ee runta sheega ma jecli inaan noqdo qofka koowaad ee been sheega sidaa darteed wax badan baa kasii fiirsanaya inta aanan shirka jaraa'id la qaban marka dowladda federaalka soomaaliya ayaan ka sugaya hadduu alla idmo dhinaca kale burburitaankii uu mahad salaad waa ka laabtay ma jirto hotelkii burburis loo geystay taasna waxaa ka cad ummadda soomaaliyeed ay markhaati ka tahay inay ahayd go-aan runtii inkastoo si official loo shaacin oo kaliya wariye ku sugan aagga hotelka xayaat uu soo bandhigo yiri mahad salaad baa sidaa yiri mahadna